السلام عليكم أردنا شرفت له مركلة كسر هذا 10 كني أفراد كسبسن data analysis 10 كان و10 أفراد مركلة قصة تجو هرناع هدي لقى يبان خنقنايا 10 كان سدحات waxaan filayaa inaad 10 kaas soo fahanteen markale kusoo dhawaada 10 keena afraad ee data analyze using Excel waa tahay 10 kan waa 10ka afraad marka lagu daro hordhaca marka laga reebana waa 10ka saddexaad waxaan soo baranay 10kii hore kankii ka horreeyay waxaan kusoo baranay data observationka markaa fiirinaysid oo xogti sidan ay kugu hortaalo xogtan ay ku hortaalo marka xogtan ay ku hortaalo xogtan marka ay ku hortaalo dabcan inaad fiirfiirisid waxaa suurtagal ah inaad aragtid xogtaadii in kolomka ay ku dhex jirto soo kolomka sidaan ugu ballaarin lahayn ayaan soo baranay ballaca kolomkaan soo baranay sidoo kale waxaan soo baranay space hadduu ku jiro bannaan sida looga tiri lahaa anagoo isticmaalayno trim function sidoo kale waxaan isticmaalnay haddii magac small ahaa aragno capital inaan ka dhigno inaan isticmaalno function la yidhaahdo proper casharkan marka waxaan ku baranaynaa inaan aragno xogtan tirada badan ee hadda ardada ku saabsan xogtan tirada badan ee aad u jeedid ee ardada ku saabsan waxaa ku jiro meelo bannaan ayaa ku jiro dabcan meelo bannaana ku jiro kan wuu bannaan yahay dabcan selkan wuu bannaan yahay ama selaa kaa bannaan ama waxaa kaa bannaan row ayaa kaa bannaan ama rowa kaa bannaan ama dabcan waxaa kaa bannaan sel ayaa kaa bannaan soomahan selaa bannaan ama waxaa bannaan row ayaa bannaan okay this is a rowgan oo kala bannaan okay rowgan oo kale ayaa bannaan rowgan oo kale ayaa bannaan okay rowga dhan wuu bannaan yahay okay rowgana bannaan sidoo kale rowgana bannaan rowgan ayaa bannaan okay marka xogtan muhiimka ah ee aad qortay u qortay maaragtay madaxdaada u qortay meelo bannaan aa ka tagtay meelahaas bannaan sidaan ku ogaan karno oo aan isaga tiri karno ayaan casharkeena ku qaadanaynaa soo marka hore markaan rabno inaan ogaano meelaha naga bannaan waxaan isticmaalaynaa dhowr hab inaan isticmaalno control G oo noo soo baxa dialogue boxkan control G oo noo soo baxo dialogue boxkan hadda waxaan isticmaali doonaa specialkan isticmaali doonaa specialkan ayaan isticmaali doonaa control G ayaan isticmaalnay ama waxaan isticmaalaynaa F5 oo keyboardka the same ayaa noo soo baxaya waxaa noo soo baxaya control go to ayaa noo soo baxaya specialkana hadhow isticmaali doonaa specialkaas isticmaali doonaa marka F5na waa isticmaalnay F5na waa isticmaalnay control oo keyboardka ah waxaan la qabanay G ayaan la qabanay sidoo kale waxaan isticmaali doonaa find meel la yidhaahdo find ayaa waxaan kasii aadi doonaa go to meel la yidhaahdo isticmaali doonaa waa kana find waxaa isticmaalaynaa qoraalkaaga highlight garaysanay qoraalkaaga markaa highlight garaysanaysid sidaas u highlight garay ama geeskan si dhammaan ku highlight garayso then find waxaa ka qurux badan qoraalkaaga leh inaad ku ekaatid highlight garaysid hadda qoraalkan waa tiro badan yahay qoraalkan waa tiro badan yahay marka aan highlight gareeyo isagoo dhan waa highlight gareeyey then waxaan tegi doonaa halkan ujeedid find ayaan tegi doonaa find ayaa tegi doonaa waxaan ka tegi doonaa go to ayaan ka tegi doonaa find go to meesha ku qoran tahay ayaan tegi doonaa marka find markaan tagno go to aan leenahay dialogue boxki ayaa noo soo baxay soo marka
intaba isticmaal simple markaad anaga aan iska isticmaalna anagoo ma highlight gareyninba aan iska isticmaalna F5 aa ku fududaan filaya F5 dialog boxki ayaa he kuu soo baxay F5 markaa isticmaalna waxaan dhihinaa special ayaan dhihi doonaa waxaan dhihi doonaa dialog boxkana noo soo baxay si fiican u arka dialog boxkan noo soo baxay dialog boxkan blankskan meeshay ku qoran tahay ayaan ku dhufan doonaa waa blanks meeshay ku qoran tahay blanks ayaa hee ku dhufan doonaa waa blankskan halkan ayaan click siin doonaa marka let us click it okay aan lehnaa marka okay waxaa marka highlight garaysmay meel kasta oo banaan oo laga tegay marka highlights color iska saarina si aan u wada aragno dabcan oo ujeedaa waa meelaha banaan oo dhan waad arkaysaa meelaha banaan oo dhan waad arkaysaa sidoo kale rows fiiri rowsa banaan this is a row okay wuu banaan yahay rowgan wuu banaan yahay okay selkan way banaan yihiin soo maahan waxaan marka inaan iska tirtirno waxaan isticmaalaynaa control oo minus oo keyboardka aan isticmaalaynaa dialog boxkana noo soo baxaya dialog boxkan ayaa noo soo baxaya marka haddii wax selal ay yihiin shift cells abaa la dhahaa laakiin haddii row aan dhahno entire row aan dhahno meel kasta oo maran rowgeedoo naga saarayaa marka mathalan hadda haddii aan entire row aan dhahno waxaa baxaya dabcan aan ku celino control z aan dhahno ralka uu noo highlight garaysan yahay soomaa marka control iyo minus aan isticmaalno entire row aan dhahno marka meel kasta wax dhan way naga baxeen wixii highlight garaysan oo dhan way naga baxeen hadda wax bannaan ma lahan laakiin this is not a logic control z aan dhahno inaad wada tirtid soo macquul maahan waayo selka bannaan xog ayaa ku jirtay xogtaas waxaa la rabaa marka inaad xogtii buuxsatid manual marka meel kastoo bannaan tusaalaha meeshan 16 ka maqneed 16 geesho meeshan 17 ka maqneed geesho meeshan 5 ka maqneed geesho okay hadduu laakiin row ahaa oo for example rowgan oo kale rowga marka hadiisan ba qoraal uusan ku jirin oo aan loogu talagelin right kligaan dhahnaa delayed ayaan dhahnaa waa iska tirtiraynaa rowgii right kligaan leenahay delayed ayaan dhahnaa waa iska tirtiraynaa waxaan filayaa inaad fahamteen casharkeenna maanta inaad fahamteen waa marka koowaadoo waxaan aragnay control G ayaan aragnay soo mahen marka control G-gan haba badan aan kusoo baxsanaynay F5 control G nafteeda inaan find dhahno aan go to dhahno marka waa muhiim hadhow xog tiro badan markaa haysatid iska fiiri inaad wax ka tagtay meel blank ah inaad ka tagtay meel faaruq ah inaad ka tagtay iska fiiri ardayda sharafta leh marka commentiga kusoo qoro wixii su'aal ah wixii talo ah commentiga kusoo qor hadduu ilaahay waxaan ku guda jirnaa data cleaning ayaan ku guda jirnaa aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalka sheer gareeya